السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام دمان أصحابتي قالقة أصحابتي قالقة سيتهين في عنتهين من نبات قبتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا ملكستو أدون كجوكتان خير يفرحت لسو دواذا ولا شي نوع عصب قفكي نوع عصب سو دو برشا وناكسن welcome أصحابتيني هوري أذين كان اسكسو نقض وناكسن saaxiibayaalow kheyr iyo farxada ilaahay noo wada weydiina insha allah waad u jeedaan aanu malaynaa ciwaanka barnaamijyadeena kale wuu ka duwan yahay barnaamijkan kheyr allah ha siiyo marka hore aan u duceyno qof walba oo islaam ah amaba noo saaxiiba ee xoogaa arrimaha uur qaadista ay ku adkaatay allah u sahlo allah u saqiro kheyr allah ha siiyaan si boodyo badanaa bixiyaa qaar private marka insha allah saad ciwaanka ka aragtaanba waxaa loo baaqayaa walaashii daneynayso ama reerkii daneynayo inay aadaan dhaqaatiirta sida qaaska u caawiso walaalaha ama xaasaska ku adkaatay owlaad qaadista waa arrimaha IVF ama fertility treatment dadka u baahan in arrimaha laga caawiyo marka aniga si qaasa idin kala shaqeeya howlaha waa moral support ama nafaqeyn amaba fahansiin dhanka fertilityga waayo wax badan ayaa reerka ka dhidhinaan karo allaha noo sahlo wax kheyr leh oon cunno oon cabno dabadeedna jirkeena wax qabadkiisii ilaahay idankiisa uu soo celiyo aad waxaan u jecelnahay insha allah allah noo kasee in jirka uu si dabiiciya u shaqeeyo hase yeeshee amarka ilaahay marmar ma shaqeeyo waxaa suurto gasho in maaragtay labadii qofood ay u baahan yihiin sibood fiican allah sahlo amuuraha marka anigu si podcast private aan bixiyaa haddana waa idinkugu baaqaa barnaamij muddo dheer la sugayo waaye ilaa iyo 2017 2018 2019 samarkii 2019 la bilaabay in la diyaariyo waayo oo waqti dheer u qaatay waayo dadka ma aha asxaabta caafimaadka iska dhuudhuujinayso oo kale waa dad aad loogu deyriyay xagga ugxaanta amaba xajmico lagu dhagay dadka qaarkood ee muddo dheer sugayay ilaa 3 sano ku dhawaad sugayay barnaamijkan waa dad lagu yiri wax rajaa ma lihidin marka waa dad u baahan waxyaabaha ugu fiican adduunka iyo waxtarkooda dhanka fertilityga si u baahan deganaansho ah inay wax ku fahmaan waayo arrinkan waa arrin waqti dheer qaadan karo amaba dadku ay khatar u yihiin inayba ka sabraan faamiliyo badanaa sabreen amaba reero badanaa sabreen waxaa loo sabraa wax kale maaha in la dhex galay rabtaa arrinkan wax walba oo keeni kara dhibna laga fogaado insha allah anigu waqti ma haynin howlo badan ay u furnaa ilaa hadda way furan yihiin hase yeeshee maasha allah waqti waa loo diyaariyay qofkii u diyaara sidoo kalena balansan karo marka waa arrin bukin u baahan balan u baahan dabadeedna insha allah in la fahmo u baahan waa inaad boos uga banaysa noloshaada si aad wax uga barato xaalka guud oo fertilityga u baahan yahay owlaad raadinta allaha sahlo owlaad qaadista allaha sahlo dhalistoodii korintoodii kala celintoodana allaha sahlo kuwa barakaysan allahna ka soo sarrifo insha allahu kheyr qof walboo dadaalayo allaha kugu guulayaan ku leeyahay owlaad ilaahay baa bixiyo ibnu aadan ma haayo hase yeeshee kheyraadka suurto gelin karo inaad uur qaado amaba ay kuu suurto gasho ayaa laga yaabaa ilaahay idankiisa inaad si sahlan u hesho wax kuu roonaa laga yaabaa inay ku agyaaliin laakiin aadaba ogeyn marka allaha soo birbiriya wax kheyr leh haddii aad danaynaysaan arrinkan ama isku diyaarinta arrimaha IVF-ka waa ila soo xiriiri kartiin waa ujeedaan nambarka hortiina yaallo waa nambarka laga ballansado maamuwaano ama laga booking gareysto kheyr allah idin siiyo ogaada barnaamijkan waa special barnaamijyada kale oo aan sameeyo dhan wuu ka duwan yahay amuurta kheyr allah ka dhigo insha allah aan isku soo duceyno meel walboon adduunka ka joogno kheyr iyo farxada ilaahay inoo wada weydiiyey saaxiibadii aan jeclaayo barnaamijkan waa baaqis haddii aad usii baaqi karto walaalaha u baaq ama asxaabtaada u sheergaree say nambarka u soo wacaan ballanna u samaystaan
الله سهل أمورها وإنه برنامج كلا دو إلى يراد عافية عافية ماد وما موانو إذله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.